الله guddoonka labada aqal xubnaha baarlamaanka sharafta leh labada aqal guddiga xubnaha labada gole saxaafadda waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd alsalaan wax alla wixii oo hadal ahay iyo wixii nidaamka kuley xildhibaanadii iga horeeyay ayaa ka hadlay waxaan rabaa in aan wax ka iraahdo hadduu alla hawadal ogolaado qodobka 22aad farqadiisa saddexaad taasoo dhehaysa shaqaale kasta wuxuu xaq u leeyahay shaqo joojin waxaan rabaa sida uu yahay farqadaasi 22aad qodobka 22aad farqadiisa saddexaad sidii markii hore uu u qornaa in loo qaato maadaama uu leeyahay shaqo joojin haddii aysanba amniga wax u dhimaynin maxaa jira waxaa lagu kordhiyo oo keliya joojin uusan wax yeelaynin mar haddii uu shaqo joojin inta uu sameeyo ninka shaqaalaha ah uusan amnina wax u dhimaynin dee asagana hadda waxba u dhiman mayso in ay meeshaas wax ka soo gaarto saa darteed waxaan leeyahay sida ay u qorneed farqadda saddexaad oo hore in loo qaato ayaan rab ku talinaya hadduu ala yidhaahdo qodobka 24aad qodobka 24aad farqadiisa labaad waa lagu celceliyey wax badan baana laga hadlay dowladdu waxay si khasab ah ula wareegaysaa kaliya waxaa fiican siiqadaasi meesha khasabka ah in xoogaa ereygaasi laga fiican yahay la asluubeeyo waa wax jiri jiray waana wax jiraayo wax alla wixii hanti guud ah ee dowladdu u baahato ee uu leeyahay nin shacab ah baahida dowladda ayaa ka weyn iyadoo ku fulinaysa iyadana dan guud saa darteed ereyga qasabka ah waxay qasab ula wareegay ereygaas ayaa xoogaa ah erey culus balse waa wax soo jiri jiray inay dan guud ay kula wareegto laakiin ha laga saaro ereygaasi waxay qasab ula wareegaysaa maadaama meesha ay soo gelayso in ninkii lagala wareegay la siinayo magdhow oo weliba caadil ah la leeyahay waxaa fiican wixii loo arko wanaag ee dowladunu dadka ay wax ugu qabanayso in xaaladaasi ay kula wareegto laakiin ereyga qasabka ah meeshaasi si kale loo bedelo qodobka 26aad daryeelka qoyska farqadiisa labaad wax badan ayaa isagana laga hadlay waxaan ku waafaqsanahay xildhibaanadii ugu dambeeyay hadda iga horeeyay ee yiri da'da qaangaarka waa 15 maxaa jira ma waxa dowladda adiga waxa ugu qoran waa gudoomiyaha uu ka idayo waxba isla daw marsan buugtaas ka daw marsan 26 ugu qoray hadii 27 ugu qoray adiga hase yeeshee waxaan waafaqsanahay da'daas inay ahaato qaangaarka 15 maxaa jira annaka maadaama dad islaam aan nahay gabdhahanaga qaarkeed waxaa laga yaabaa markay da'da 18 ay jiraan inay haystaan 3 caruur iyo 4 caruurood oo kale marka haddii la yiraahdo 18 wixii ka yar ah waa ciyaal oo caruur gabdhuhuna ay rabaan ama xataa wiilal ha noqdo ay ku qaangaaraan 15 qaarkeen ayaa xataa Soomaaliya waxaa laga helaa 13 inay ku guurgalaan oo xilligaas ay 18 gaarayaan ay haystaan ilaa 4 caruur oo kale iyo 5 caruur saa darteed waxaan waafaqsanahay xildhibaanadii soo jeediyey
in da'da qaangaarka ay ahaato 15 sano qodobka 27aad xuquuqda carruurta farqadiisa afaraad oo qaba lama adeegsan karo howl adagna looma diri karo waa isla meeshii waa isdaba jooga maxaa jira qodobkaasi 27aad ee xuquuqda carruurta ka hadlaayo haddii aan niraahdo waa carruur wixii 18 sano ka yar waalidiinta waxaad moodaa in ilmahanaga looga baahan yahay xilligaasi xilligii xooggooda lagu munaafacadsan lahaa inay yihiin haddii la yiraahdo marka waa ciyaal in arrintaasi adigana iyada laftigeeda ay tahay waxaan suurageli karaynin marka waa in ay ahaadaan isla waxay daba joogaan mar haddii ay tahay 15 aan qaangaar niri oo wixii dambe u yimaado loo dhigaayo in ay ahaato iyadana taas mubax laga dhigo qodobka 28aad farqadiisa saddexaad ee ka hadlaysa waxbarashada aasaasiga ah sida lagu dhawaajiyey waa qasab hoose dhexe ilaa iyo sare waa inay ahaato lacag la'aan waa waafaqsana hase yeeshee waxaa loo baahan yahay horta in la helo dugsiyadii wax lagu baranaya idina waxbarashada ee meel kastaba beled iyo baadiyo la geeyo sida iskuuladii la dhihi jiray waxbarashada khasabka ah ama ololaha horumarinta reer miyiga si ay dadkanaga wax u bartaan ee ay uga baxaan jahliga haddii ay wax bartaanna wax badan ayaa soo kordhaya marka waxaan leeyahay waa lisku waafaqsan yahay in wax la barto dadkana wax la baro hase yeeshee ilaa iyo secondarygana lacag la'aan wax lagu baro saas darteed waxaan soo jeedinayaa guddigan u soo jeedinayaa in ay ku darsadaan in la helo waxbarashadaasi dadka meeshii wax ku bar lahaayeen oo xagga iskuulaadda oo beltii baadiya in laga sameeyo hadduu la yidhaahdo maadaama inta badan laga wada hadlay qodobada kale xildhibaanada kale ayaan la qabaa halkaas ayaan isaga soo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu